dagaalka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo ismaamulka Tigrayga ee dalka Itoobiya ayaa sii xoogeysanaya iyadoo beesha caalamka iyo qaramada midoobay ay walaac ka muujinayaan dagaalkaasi. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu kala hadlay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xaaladda dagaalkaasi iyo sidii nabad looga wada shaqeyn lahaa. dagaalka ayaa soo muuqda sida dad badan ay qabaan mid aan soo yaraanaynin balse waqti qaadan doona. haddaba gobolka Tigray waa gobol sidee ah deegaan ahaan waxa sharxaya Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ka soo jeeda Itoobiya arrimaha wadankaasina si dhow ula socda. gobolka Tigrayga waa gobol ay ku nool yihiin dadka Tigrayga loo yaqaan qowmiyad ahaan wuxuu ku yaalaa waqooyiga Itoobiya wuxuu xad la leeyahay Eritrea dhanka kale Itoobiya waxa ka kale leeyahay labada gobol ee Canfarta iyo Axmaarada. waxa ku nool dad lagu qiyaasay 6% tirada guud ee Itoobiya marka la yiraahdo. waxaana muhiim ka dhigaya waxa weeye taariikhda siyaasadda ay ku leeyihiin Itoobiya guud ahaan haday boqortooyooyinkii hore noqoto iyo haday dawladdii hore noqotoba. dagaalkan oo galay maalintii lixaad ayaa sidoo kale waxa uu keenay isbedel in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku sameeyo hoggaanka ciidamada ee dalkaasi iyo xilalka muhiimka ah. haddaba sidee dagaalkan looga arkaa Itoobiya gudaheeda waxaan su'aashaasi weydiiyay Dr. Cali Sheekh Ahmed Dagaweyne oo ku taqasusay daraasaadka amniga caalamka oo ku sugan dalka Itoobiya arrintan la socda. shacab weynaha Itoobiya waa jiri karaan qolooyin fikrado duwan haystaan laakiin intooda badan waxaad ka arkaysaa media ama fagaaraha bulshada ay ku kulantay networkska inta badan siday u badan yihiin ay jeclaayeen dagaalkan in mar horeba lagu qaado kooxda TPLF ee talada wadanka haysay. marka waa iska garan kartaa xisbi tala soo hayay ugu yaraan 30 sano waxyaabaha laga tirsan karo. inkastoo maamulka Tigray iyo dawladda Abiy Ahmed aysan waayadan dambe isku wanaagsaneyn haddana waxaa dad badan in la yaab ku noqotay dagaalkan ay dawladdu sheegtay inay gobolkaasi ku qaadayso. haddaba maxaa keenay dagaalkan inuu bilowdo waxaan su'aashaasi weydiiyay Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar. walaal sidaynu ognahay maalmihii ugu dambeeyay laga soo bilaabay ilaa 5 maalmood ka hor yaa waxa meesha ka dhacay dagaal ka dhaxeeyay dawladda dhexe Itoobiya iyo nimankii TPLF la oran jiray wadanka soo xukumi jiray oo iyagu siyaasad ahaan ka soo horjeeda xisbigan PP-da ama barwaaqada loo yaqaano oo lagu bedelay xisbigii hore iyagu ay hoggaanka u ahaan jireen EPRDF-ta. marka nimanku maadaama ay ahaan jireen niman 27 sano wadanka soo xukumayay waxay doonayaan Itoobiya iyagu ay garwadeen ka yihiin ama wasi ay ku leeyihiin saameyn siyaasadeed oo baaxad leh. taas markay meesha ka waayeen way ka hor yimaadeen. waxay ka hor yimaadeen oo kale doorashooyinkii wadanka dib loo dhigay ayay yiraahdeen dastuurka ma waafaqsana. isla markaa xifaaltan baa u dhaxeeyay ilaa 6 bilood 7 bilood u dambeeyay ama sanadii u dambeeyay xitaa ilaa sanadii barkii u dambeeyay iyo kay dawladda dhexe kaasoo salka ku hayay sida wadanka loo maamulayo aanay raalli ka ahay jihada cusub ee wadanku qaaday oo aanay raalli ka ahay iyo waxyaabo fara badan oo isbiirsaday. habase ahaatee xagga dawladda dhexe lafteeda ayaa moodaa in intan dambe uu degdeg jiro oo nimankan maadaama ay dawladda soo ahaan jireen waxay lahaayeen xiriir fara badan connection fara badan baa iska jiray oo dadka iyaga taageersanaan jiray ee haday xagga tahay xagga amniyaadka iyo xagga amniga iyo magaranaysa iyo isgaarsiinta iyo waxyaalo badan ayaa jiray ilaa dawlad bay soo ahaayeen midna hadii dad lagu laayo gilalka oromada oo kale iyadoo la isirbeegsan oo Axmaare u kala yihiin si maalmo u dambeysay dhacday oo kale iyo dawladda dhexe waxay ku eedeynaysaa toos ugu eedeynaysaa in TPLF-tu ay gacan ku leedahay isla markaana ay arrimaha noocaas oo kale u faradhuuban tahay. marka khilaafkii noocaas ah soo jiitamay ee siyaasadeed yaa markii dambe isku bedelay gacan ka hadal. Itoobiya waxay xuduud la leedahay Soomaaliya sidoo kalena waxa Soomaaliya ka jooga ciidamo nabad ilaalineed. haddaba sidee Soomaaliya u saameynaya dagaal Itoobiya ka dhaca? waa kan Professor Xuseen Warsame oo sharxaya. arrinta geeska Afrika aad bay ugu xuntahay arrintani oo saameyn xoog leh ay ku yeelanaysaa. waxa laga yaabaa Eritrea laftigeedu inay istiraado hadda baadmi gobolkii ahaa ku soo cisho dagaal ee awal nabad ay ku weyday ku soo cishinaysa ayaa dhici karta. qaxooti badan ayaa ku soo fatihi doona geeska Afrika oo dhan gaar ahaan Djibouti iyo Soomaaliya. dhibaatooyinkii gaajada ayaxa duufaanada iyo argagixisada ayaa waxa ku sii biiri kara bil qaxooti ayaa ku sii biiri kara. horumarkii dhaqaale ee ay ku tilaabsanayeen gobolka oo Itoobiya 10% ku kordhaysay 10kii sanana soo dhaafay
waxa uu weeqmi doonaa arintaasi Djibouti oo middle class noqonaysay oo maganaysa middle income wadanka noqonaysay meel dhexe micnii noqonaysay iyada laftigeeduna waa la isla dulmari doonaa Soomaaliyana malaayiin qaxooti ah ayaa iman doona marka laga soo tago dagaalka Tigray Ethiopia waxa muran xoogan oo dhanka biyo xireenka ay webiga Nile ka dhisayso oo kala dhaxeeya dalka Masar kaas oo aan wali xal laga gaarin dagaalka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo ismaamulka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa sii xoogaysanaya iyadoo beesha caalamka iyo qaramada midoobay ay walaac ka muujinayaan dagaalkaasi xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu kala hadlay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xaaladda dagaalkaasi iyo sidii nabad looga wada shaqeyn lahaa dagaalka ayaa soo muuqda sida dad badan ay qabaan mid aan soo yaraanaynin balse waqti qaadan doona haddaba gobolka Tigray waa gobol sidee ah deegaan ahaan waxa sharxaya Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ka soo jeeda Ethiopia arrimaha wadankaasina si dhow ula socda gobolka Tigray waa gobol ay ku nool yihiin dadka Tigray loo yaqaan qowmiyad ahaan wuxuu ku yaalaa waqooyiga Ethiopia wuxuu xad la leeyahay Eritrea dhanka kale Ethiopia wuxuu xad kale leeyahay labada gobol ee Canfarta iyo Axmaarada waxa ku nool dad lagu qiyaasay 6% tirada guud ee Ethiopia marka la yiraahdo waxaana muhiim ka dhigaya waxa taariikhda siyaasadda ay ku leeyihiin Ethiopia guud ahaan haday boqortooyooyinkii hore noqoto iyo haday dawladdii hore noqotoba dagaalkan oo galay maalintii lixaad ayaa sidoo kale waxa uu keenay isbedel in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku sameeyo hoggaanka ciidamada ee dalkaasi iyo xilalka muhiimka ah haddaba sidee dagaalkan looga arkaa Ethiopia gudaheeda waxaan su'aashaasi weydiiyay Dr. Ali Sheikh Ahmed Dagaweyne oo ku takhasusay daraasaadka amniga caalamka oo ku sugan dalka Ethiopia arrintan la socda shacab weynaha Ethiopia waa jiri karaan qolooyin fikrado duwan haystaan laakiin intooda badan waxaad ka arkaysaa yani media ama fagaaraha bulshada ay ku kulantay ee networkska inta badan siday u badan yihiin ay jeclaayeen dagaalkan in mar horeba lagu qaado kooxda TPLF ee talada wadanka haysay marka waa iska garan kartaa xisbi tala soo hayay ugu yaraan 30 sano waxyaabaha laga tirsan karo inkastoo maamulka Tigray iyo dawladda Abiy Ahmed aysan waayadan dambe isku wanaagsaneyn haddana waxaa dad badan in la yaab ku noqotay dagaalkan ay dawladdu sheegtay inay gobolkaasi ku qaadayso haddaba maxaa keenay dagaalkan inuu bilowdo waxa su'aashaasi weydiiyay Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar walaal sidaynu ognahay maalmihii ugu dambeeyay laga soo bilaabay ilaa 5 maalmood ka hor waxa meesha ka dhacay dagaal ka dhaxeeya dawladda dhexe Ethiopia iyo nimankii TPLF la oran jiray wadanka soo xukumi jiray oo iyagu siyaasad ahaan ka soo horjeeda xisbigan PP-da ama barwaaqada loo yaqaano oo lagu bedelay xisbigii hore iyagu ay hoggaanka u ahaan jireen EPRDF-ta marka nimanku maadaama ay ahaan jireen niman 27 sano wadanka soo xukumayay waxay doonayaan Ethiopia iyagu ay garwadeenka yihiin ama wase ay ku leeyihiin saameyn siyaasadeed oo baaxad leh taas markay meesha ka waayeen way ka hor yimaadeen waxay ka hor yimaadeen oo kale doorashooyinkii wadanka dib loo dhigay ayay yiraahdeen dastuurka ma waafaqsana isla markaa xifaaltan baa u dhaxeeyay ilaa 6 bilood 7 bilood u dambeeyay sanadii u dambeeyay xitaa ilaa sanadii barkii u dambeeyay iyo kay dawladda dhexe kaasoo salka ku hayay sida wadanka loo maamulayo aan raalli ka ahay jihada cusub ee wadanku u qaaday oo aan raalli ka ahay iyo waxyaabo fara badan oo isbiirsaday habase ahaatee xagga dawladda dhexe lafteeda ayaa moodaa in intan dambe uu degdeg jiro oo nimankan maadaama ay dawladdu soo ahaan jireen waxay lahaayeen xiriir fara badan connection fara badan baa iska jiray oo dadka iyaga taageersanaan jiray ee haday xagga tahay xagga amniyaadka iyo xagga amniga iyo magaranaysaa iyo isgaarsiinta iyo waxyaalo badan ayaa jiray ilaa dawlad bay soo haayeen midna hadii dad lagu laayo gilalka oromada oo kale iyadoo la isirbeegsan oo Axmaar ay kala yihiin sidii maalmo u dambeysay dhacday oo kale ya dawladda dhexe waxay ku eedeynaysaa toos ugu eedeynaysaa in TPLF-tu ay gacan ku leedahay isla markaana ay arrimaha noocaas oo kale u faradhuuban tahay marka khilaafkii noocaas ah soo jiitamay ee siyaasadeed yaa markii dambe isku bedelay gacan ka hadal Ethiopia waxay xuduud la leedahay Soomaaliya sidoo kalena waxa Soomaaliya ka jooga ciidamo nabad ilaalineed haddaba sidee Soomaaliya u saameynaya dagaal Ethiopia ka dhaca waa kan Professor Xuseen Warsame oo sharxaya arinta geeska Afrika aad bay ugu xuntahay arintani oo saameyn xoog leh ay ku yeelanaysaa waxa laga yaabaa Eritrea laftigeedu inay istiraado hadda baadmi gobolkii ahaa ku soo cisho dagaal ee awal nabad ay ku weeday ku soo cishinaysa ayaa dhici karta qaxooti badan ayaa ku soo fatihi doona geeska Afrika oo dhan gaar ahaan Djibouti iyo Soomaaliya
dhibaatooyinkii gaajada ayaxa duufaanada iyo argagixisada ayaa waxa ku sii biiri kara bil qaxooti ayaa ku sii biiri kara horumarkii dhaqaale ee ay ku talaabsanayeen gobolka oo Itoobiya 10% bay ku kordhaysay 10kii sanana soo dhaafay waxa uu wiiqmi doonaa arintaasi Djibouti oo middle class noqonaysay oo maganas middle income wadanka noqonaysay meel dhexe macnii noqonaysay iyada laftigeeduna waa la isla dulmari doonaa Soomaaliyana malaayiin qaxooti ah ayaa iman doona marka laga soo tago dagaalka Tigray Ethiopia waxa muran xoogan oo dhanka biyo xireenka ay webiga Nile ka dhisayso oo kala dhaxeeya dalka Masar kaas oo aan wali xal laga gaarin